sahamin uu dhowaan sameeyey bangiga maalgashiga adeegyada maaliyadeed ee Credit Suisse Group ayaa waxa uu ka ogaaday in tirada dadka maalqabeenka ee dalka Shiinuhu ay markii ugu horeysay taariikhda ka badan tahay tirada dadka Maraykanka ee maalqabeenka ah. sahamintan uu sameeyey bangigan caalamiga ee xaruntiisu ay tahay dalka Sweden ayaa sidoo kale muujinaya in si muuqata ay u sii kordhayso tirada maalqabeennada labada dal ee Shiinaha iyo Maraykanka. warbixin sanadeed uu bangigu ka soo saaro maalqabeenka adduunka ayaa waxa uu ku sheegay in 6 bilood ee sanadkan ugu horeysay ay maalqabeenka adduunka 10% oo noqonaysa 100 milyan oo ruux ay ka soo jeedaan dalka Shiinaha, halka 99 milyan ay dalka Maraykanka gaadhayaan maalqabeennadiisu. Dr. Nanat oo madax ka ah waaxda dhaqaalaha iyo cilmi baadhista ee bangiga Credit Suisse ayaa markii ay ka hadlaysay natiijada sahaminta ee cusub waxa ay sheegtay in kastoo ay jiraan khilaaf iyo xiisado ganacsi oo u dhexeeya dalka Maraykanka iyo Shiinaha haddana in 12 bilood ee u dambeeyay ay labada dalba kaalin muuqata oo hormuud ah ka ahaayeen curashada maalqabeennada cusub ee adduunka ku soo kordhaya. iyadoo ay isku darka dhaqaalaha u kordhaya maalqabeennada dalka Shiinuhu uu gaadhay 3.6 trilyan oo dollarka Maraykanka ah, halka dalka Maraykankana ay maalqabeenkiisu u korodhay maaliyad dhan 1.9 trilyan oo dollar. warbixintu waxa ay sheegtay in tirada guud ee maalqabeenka adduunku ay 5 sano ee u dambeeyay korodhay 7%, taas oo haddii ay sidaas ku sii socoto ay noqon doonto in sanadka 2024 ay dunida maalqabeennadeeda u korodho lacag dhan 459 trilyan oo lacagta Maraykanka ah.